wadooyinka Muqdisho ay ka bilaabaan nalalka kala haga baabuurta iyo dadweynaha mara wadooyinka caasimadda Muqdisho ee loo yaqaan Sama Faraha. taliyaha ciidanka ilaalada nabadgelyada wadooyinka ee Traffic oo Saraakiil guuto Cali Xirsi Barre Cali Gaab ayaa waxa uu ka hadlayaa faa'iidada ay u leeyihiin dadweynaha iyo gawaarida isticmaasha wadooyinka caasimadda Muqdisho nalalka Sama Farayaasha ee maanta lagu rakibay qaar ka mid ah jidadka Muqdisho. faa'iidada ay bulshada ku qabaan koow waxa badbaadaya dhiigii iyo dhiidkii askarigii baabuurta kala hagay wuxuu helayaa qofku adduunyada markuu u gudbo Sama Fare inuu la qabsan karo inta Soomaaliya ka tago oo Rooma tago inuu baabuurta islaamada irtin inuu halka wax ku sii barto oo Soomaalida wax barto wuxuu helayaa dib u soo celintii dawladnimadii iyo sharafkii iyo kala dambeyntii waxay qiimo u tahay ciidanka nabadgelyada wadooyinka iyo cidii qarannimada garanaysa waxaan uga mahad celinaynaa gobolka Banaadir oo soo diyaariyay gacantana ku haya haddana rakibaya. sidoo kale afayeenka maamulka gobolka Banaadir Maxamed Yuusuf Cismaan oo warbaahinta qaranka kula hadlay isgoyska Xawataako oo hawsha dib u howlgelinta Sama Farayaasha ka socotay ayaa waxa uu sheegay inaanu jirin cid maamulka gobolka Banaadir gacan ka siisay dib u howlgelinta hawshani. cid nagu maalgelisay iyo ciidan maxaa la yiraahdaa nagu taageertay iyo dawlad nagu taageertay ma jirto. shacabka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho ku dhaqan canshuurta laga qaaday ayaa dib loo geliyay servicekaas in maanta loo sameeyo. waa tijaabo waa isgoyskii hooyooyinkan taaganahay Xawataako waxaan rabnaa marka wadayaasha gaadiidka dadweynaha iyo kuwa private-ka ah iyo kuwa dawladdu ay leedahay inay u hoggaansamaan sharciga inay u hoggaansamaan inay tixgeliyaan askariga shaatiga cad leh traafikada ay taagan dariiqa u taagan gaadiidkii dadweynaha inuu kala hago inay tixgeliyaan inaan la dardarin aan codsanaynaa. sharcigu waa nagu filan yahay sharciguna waana wada qabtaa. qaar ka mid ah dadweynaha Soomaaliyeed isticmaala wadooyinka caasimadda Muqdisho oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa ay sheegeen inay si aad ugu faraxsan yihiin dib u howlgelinta nalalka Sama Faraha ee kala haga baabuurta iyo waliba dadweynaha kale mara wadooyinka caasimadda Muqdisho. cawil geella ayaa la yiraahdaa waxaan ku faraxsanahay sharcigii oo soo noqday way xilligii dawladda ay jirtay Sama Faraha ayaa dadka kala hagi jiray haddana xabad baa lagu kala hagi waayay oo mataqaana wax kala celiyaa la waayay marka waa ilaahay maadi in sharciga wadooyinku soo noqdo oo Sama Faraha soo noqdo oo koodisha isbaradaal ay soo noqoto waan ilaahay ku maadinaynaa. Sama Faraha muddo aniga kulli intaan wax gartay ma aan arag aadaan ugu faraxsanahay maadaama nabadgelyada waddanka ay soo laabatay nidaamka wadooyinka la sameeyay aadaan u taageersanahay dadweynaha Soomaaliyeed waxaan ka codsan lahaa inay nidaamka la socdaan ee wadooyinka si fiican darwaleynta baabuurta u ilaaliyaan xillina waqtigooda ay qaataan xillina dadweynaha ay siiyaan. aad baan ugu faraxsanahay waa waxaan weynay 20 sano ka hor aad baan ugu faraxsanahay waan soo dhaweynaynaa intii sameysana waxaan leenahay kor wax ka badan oo ka sugan. Sama Faraha maanta la taagay wadooyinka ku yaala magaalada Muqdisho ayaa waxa ay yihiin kuwo qaybka dib u soo celinta ay wadaan maamulka gobolka Banaadir waan markii ugu horeysay muddo ka badan 20 sano oo Sama Farayaal lagu taago wadooyinka magaalada Muqdisho kuwaas oo gawaarida isticmaalay wadooyinka iyo waliba dadweynaha kala hagaya. Al Cabdiraxmaan Aadan SNTV Muqdisho.